maxaa kaa hortaagan inaad tallaabo u qaaddo dhanka ay kaa xigaan riyooyinkaaga? ilaa goormee ayaad ka cabsanaysaa inaad tallaabo qaaddo? imise maalmood ama imise bilood ayaad isweydiinaysaa sideen u qaadaa tallaabadii aan ku horumarin lahaa kuna beddeli lahaa naftayda? yaad sugaysaa inuu kuu qabto arrimaha muhiimka u ah naftaada? لا تبالي فالمعالي في التحدي لا سواه كن سعيدا. السلام عليكم. magacaygu waa qaasim maxamed. ku soo dhowow muuqaal cusub. inaad hadaf yeelataa waa wax sahlan, balse inaad ka dhabaysaa waxay kaaga baahan tahay ficil iyo ku adkaysi. dhammaanteen waxaan wada jecelnahay inaan hadafyadeenna ku gaarno si fudud, balse xaqiiqda nolosha maahan sidaas. sababtoo ah wax aan lagu dhibtoon laguma dheebsado. dad yar oo inaga mid ah ayaa ku guulaysta inay isbeddel ku tallaabsadaan, gaaraanna hadafyada nolosha ay ka leeyihiin. sidoo kale waxaa jira dad badan oo inaga mid ah oo maankooda iyo niyaddooda ay ka guuxayaan horumarro iyo tallaabooyin ay isdhahayaan haddii aad qaadi lahayd waad guulaysan lahayd oo waxaad gacanta ku dhigi lahayd wixii aad ku haminaysay inaad maalin un gacanta ku dhigto. balse dadkaas ma qaadaan tallaabooyinka ay ku gaari karaan waxa ay rabaan, sababtoo ah waxaa ka hortaagan 3 cadow oo iyagu ay ku beereen naftooda. cadowga koowaad waa shakiga. inaad ka shakiso awoodahaaga, iskuna aragto inaad tahay qof aysan u suurtagalayn waxa uu rabo inuu ka guul gaaro. ka shakinta naftaada waxay kuu horseedi kartaa inaadan tallaabo qaadin, waxaadna rumaysanaysaa inaad tahay qof liita oo aan mudnayn inuu gaari karo hankiisa. ma samayn kartid, dhib ayaa kaa soo gaarayo. hadda ma samayn kartid, awood uma lihid, suurtagal ma ahan, iska dhaaftani way kugu adag tahay. intaas iyo in ka badan ayay naftu kugula hadlaysaa. sidaasi darteed doorashada adiga ayaa iska leh. inaad ka aqbasho oo aad ku tiraahdo waa runtaa, ma awoodi aniga, ama inaadan ka dhagaysanin oo aad ka dhabayso go-aankii aad ku gaartay. inaad rumayso hamigaaga aysanna ku celi karin wax kastoo kaa hor yimaada. tani waa sababta loogu kala haray qof kastoo inaga mid ah inuu gaaro hankiisa iyo waxa ku weyn qalbigiisa. hayasin awoodahaaga faraha badan uu allaweyne u yeelay naftaada, oo ha ka shakinin naftaada. dib u milicso noloshaada. imise waxyaabood oo aad islahayd kuma suurtagalayaan balse kuu suurtagalay. xabsi ha u gelin shakiga naftaada. waad awoodaa wax kasta. hadduuba sameeyey qof kale oo adiga kula mid ah, adigana sidoo kale waad awoodaa oo waad samayn kartaa. ha dhagaysan erayada negatifka ah ee naftaada kugula hadlayso si ay kaaga joojiso hankaaga iyo meesha aad u aragtay inaad mudan tahay. shakigu waa cudur nafsadda ku dhaca, wuxuuna sababaa inaan u tillaabo qaadi weyno dhanka hamigeenna. ma jirto howl aad adiga naftaada u qaban weysay inuu kuu qaban doono qof kale. xusuusnow, naftaada adiga ayaa mas-uul ka ah, oo ma jirto qof u qabanaya waxa ay doonayso ilaa aad adiga u dhabar adeegto oo aadan dhagaysanin ereyada niyadjabka leh, yastiinka ah iyo cabsigelinta leh ay kugu dhahayso isla naftaada. marka aad naftaada ka guulaysato oo aadan ka dhagaysanin shakiga iyo cabsida ay kugu abuurayso, ayaadna ku guulaysan kartaa wax walba oo aad ku haminayso inaad hantiso. wax kastoo aad u aragtay inaad mudan tahay inaad hantiso waxay dhanka kale ka jirtaa cabsidaada iyo shakigaaga inaad ka adkaato. wax kastoo muhiim u ah naftaada waxaa ka soo horeeya shaki iyo cabsigelin. haddii aad u joojiso, waxaad ka tanaasulaysaa ujeedkaagii ahaa inaad ka dhabayso hamigaaga. balse haddii aad dhanka kale u fikirto oo aad naftaada ku tiraahdo waan awoodi karaa inaan gaaro meesha aan rabo, oo ma ihi qof daciif ah oo ay joojin karaan erayada lidka ku ah awoodahayga. cadowga labaad waa dib u dhigid.
waxaa jirta xigmad dhahaysa waxa aad maanta qaban karto dib ha ugu dhigin berri. qaarkeen waxay booska maanta ay joogaan ay uga dhaqaaqi la'yihiin oo ay tallaabo qaadku ugu culus yahay waxay tahay inay dib u dhiganayaan rabitaankooda iyo ka guulgaaridda waxyaabaha ay ka doonayaan nolosha iyagoo qiil iyo marmarsiyo ka dhiganaya maanta kuma habboona inaan tallaabo qaado mar kale ayaan ka dhiganayaa maanta way ugu adag tahay mar kale ayaan fursad ku gaadayaa maya maanta macquul ma ahan jawiga markuu isbedelo ayaan tallaabo qaadayaa iyo erayo kaloo badan oo aan la soo koobi karin. weligaa nafsadaada ha barin dib u dhigashada howlaha muhiimka kuu ah haddii kale waad ka caajisi doontaa qabashadooda. naftaada dib u habay oo ka baabi'i waxyaabaha ka hortaagan inay ku guulaysato nolosha. inta aad sugayso waqti ku habboon ayaa waxaa laga yaabaa inay ku soo wajahaan oo ay kugu soo kordhaan caqabado cusub sidaasna aad aga niyad jabto oo aga tanaasusho ka guulgaaridda rabitaankaagii ahaa inaad nolosha wax ka beddasho kuna guulaysato wax kastoo aad mudan tahay. bal u fiirso qisadan yar. wiil ayaa wuxuu jeclaaday gabar aad u qurux badan oo deris la ahayd. waxa uu ku fikiraa mar walba inuu u sheegto jacaylka uu u qabo. habeen walba marka uu seexanayo wuxuu go'aan ku gaaraa inuu birri marka uu gabadha la kulmo u bandhigi doono jacaylka uu u qabo. balse nasiib darro marka la gaaro maalintii wuxuu nafsadiisa ku dhahaa maanta maya ee ka dhiga maalin kale. si uu dhowr bilood sidaasi u ahaa ugu dambayn gabadhii waxaa doontay wiil kale oo sidoo kale deris la ahaa. sidaasna ayaa lagu guursaday gabadhii uu jeclaa wiilka. soomaaliduna waxay tidhaahdaa daahane hortiisa dafane ayaa jooga oo macnaheedu yahay wixii aad ka daahdo oo aad ku qaban weyso waqtigii loo baahnaa inay xaaladdu isbedeli doonto ayna u badan tahay inaad weyso waxa aad ku haminaysay. bal isweydii imise jeer ayaa dib u dhigatay arrimo muhiim kuu ahaa inaad gaarto balse aad maanta ka shalaynayso. tani waa xaqiiqda nolosha. weligaa dib ha u dhiganin wax muhiim u ah naftaada oo noqo mid ka hortaga cabsidiisa una tilaabo qaad waxa aad ku haminayso. fikrad kasta oo kugu soo dhacda oo aad isleedahay waad ku guulaysan kartaa marna dib ha u dhigin haddii kale waxaad weligaa ku noolaan doontaa qoomamo iyo ciil. riyooyinkaagana waxay ku baabi'i doonaan riyooyin oo keliya oo marnaba ma rumoowi doonaan. cadowga saddexaad waa hanyari. in hadafkaagu aan kula weynaan ayaa sidoo kale sabab u ah inaad gaari weyso hadafkaaga. qofka marka uu waxa u doonayo si dhab ah oo ay ka go'an tahay inuu helo waxaa xaqiiq ah inuu ku guulaysanayo uuna u bareerayo khatar kasta oo ka hor istaagi karta hadafkaas. balse qofkeen hadduu niyadda leh uu wax ka rabo uuna diyaar u ahayn inuu tallaabo qaado suurtagal uma ahan inuu ku guulaysto hadafkaas. iska jooji cabashada badan. ma jirto qof aan adiga ahayn oo kuu qaban kara riyo kastoo aad ku riyoonayso. ma jirto cid aad ka sugayso qabashada riyooyinkaaga. xaqiiqdu waxay tahay ma jiraan wax iskood isku qabanaya ilaa adigu aad qabato. ma jiraan wax hagaagaya ilaa adigu aad ka hagaajiso. ma jirto fikir aan ficil lahayn oo rumoobaya. wax kasta waxay kugu suurtagelayaan hadba sida adigu u rabto aadna u bixiso rabitaankaaga iyo tallaabooyinkaaga. qofka waxaa hogaamiya 98% waa rabitaankiisa. waxa aad sida dhabta ah u rabto kuma muuqanayaan caqabadaha kaa hor imaanaya oo waxaad diyaar u noqonaysaa inaad dhex jibaaxdo caqabad kasta oo ku soo food saari karta. muhiimaduna ma ahan caqabadda ee waa hadafkaaga. mar haddii aad diyaar u tahay inaad gaarto hadafkan waxaad u bixinaysaa qiimo kasta oo ku baxaya mar haddii hadafkaasi uu kuu yahay mid muhiim u ah naftaada oo ma dareemaysid caqabadaha ku soo wajahaya. midna xusuusnow rabitaan uu la socdo ficil ayaa rumayn kara rajadaada. waa haddii aad diyaar u tahay inaad gaarto waxa kaa dhex guuxaya
oo aad ka doonayso nolosha. Noqo mid habingiisa iyo rabitaankiisu ay xooggan yihiin oo dhiiranaan ka sii qaada maalinba maalinta ka dambaysa, una shaqeeya sidii uu aga dhabayn lahaa rabitaankiisa. Hankaaga sare u qaad oo joogtay ficiladaada. Waxa la isku dhaafa waa ficil, ma ahan rabitaan iyo go'aan. Mar haddii aadan tallaabo qaadi karin, tallaabo ayaa lagaaga baahan yahay si aad ugu guulaysato waxa aad ka doonayso nolosha. Sidaasi darteed waxaan ku leeyahay, rabitaanka, ficilka iyo dhabar adeega marna ma dayacaan saaxiibkood. Ugu dambeyn, ka xuray naftaada saddexdan cadow: shakiga, dib u dhigidda iyo hanyarida, si aad u noqoto xidiga ama xidigta naftaada. Waxaad kaloo xasuusnaataa, wixii daacad loo yahay ee lagu dadaalo, dariiq looma waayo. Waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysato muuqaalka. Soo sidaas maahan? Hagaag. Inta aan goordhow ku kulmi doono muuqaalka soo socda, waxaan ku leeyahay, ma jirto cid kaa hor istaagi karta guushaada iyo rabitaankaaga ilaa aad adigu caqabad ku noqoto isla naftaada. Aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Mahadsanid.